Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu asxaabta meel walba joogtaan waxaan idila wadaagaynaa ama idiga sheekaynaynaa qisada jacayl ee ka dhex martay Kaajal Deefkan iyo Ajay Deefkan. Inkastoo labada xidig aad wada taqaanaan mid kasta uu caan yahay, balse mid kastaba waqti gaar ah ayuu soo galay fanka. Haddii aan ku horeyno, Ajay Deefkan wuxuu soo galay fanka 1991 halka Kaajal ay soo gashay iyaduna 1992. Filimkoodii ugu horreeyay ay wada duubaan wuxuu ahaa filimkii 95 la duubay ee Hurjul. Filimkaas ayaa ahaa kii ugu horreeyay isu keena ama ay ku kulmaan labada xidig, inkastoo qisadooda jacayl ama jacaylkooda una ka bilaabmin filimkaas oo ay muddo is yaqaaneen, balse sida warbaahinta qaar ay sheegayso ama looga qaateena ay sheegayaan, labadan xidig aad iyo aad baa isula jeclaaday. Qofka isula jeclaadayna waa Feru Deefkan oo ahaa action sameeye weyn oo dhalay Ajay Deefkan. Inkastoo Ajay Deefkan uu muqajil weyn ama yahay nin xishooda, balse waxaa isu baray oo isku xidhay inay isjeclaadaan xiriirkooda ka shaqeeyay Feru Deefkan oo Ajay aabihiis. Gabadhan Kaajal lagu magacaabo, inkastoo ay gabadh iska takhaarad ahayd dadka marba ninka hesha oo xidigii ugu horreeyay ay ka heshay si iyadoo ay sheegtay uu ahaa Akshay Kumar, balse ugu dambeyn waxa ay isjeclaadeen Ajay Deefkan oo la isu shukaamiyey isagoo iyadoo uu Ajay xidhi hore kusoo burburay oo Krishna ay soo jeclaadeen, balse Krishna waalidkiisa uu diiday. Waalidka diidayna uu ahaa waalidka Ajay Deefkan. Aakhirkii waxa ay isjeclaadeen oo jacayl miro dhala ay isu qaadeen xidigan Ajay Deefkan, waxayna isguursadeen 2001 waxayna isu dhaleen 2 carruur ah, wiil iyo gabadh. Wiilkuna uu yahay ugu yaryahay, gabadhuna ay naasa tahay. Inkastoo gabadhani aktarka ay jeceshahay uu yahay Shah Rukh Khan, balse calafkeedu wuxuu ku daray Ajay Deefkan oo ay iskala nooshahay. Hadda waa lamaane wada jooga, inkastoo aan la isku faraxsanayn, balse waa dad jirkooda wada joogo, qof kastana uu qalbigiisu qof kale ku maqan yahay. Halka Ajay Deefkan uu jecel yahay gabadha Tabu la yiraahdo oo calafku ka kaxeeyay si isagu imika u sheegay. Daawada meel kasta aad joogtaan, muuqaalka xigeentan ku kulmi doono waxaa idiga tegaynaa nabadgelyo, noole kulanti.